Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada akhyaarta meel kastoo dunida ka joogteen. Waxaa noo socday taanaheena baro dalkaada hooyo maanta iyo qaybtii saddexaad dabayaaqadii qarnigii 19aad wadamadii reer Yurub gaar ahaan Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga waxay u soo kala tartameen qabsashadii dhulka Soomaaliyeed gaar ahaan dhulka xeebaha leh gaar ahaan magaalooyinka Zayla, Berbera, Muqdisho, Marka iyo Baraawe. Inta badan xilligaani gumaystaha wuxuu isu qarinayay magaca ganacsi iyo shirkado hore heshiis ula galay odayaashii Soomaaliyeed. Inta badan odayaasha maysan fahmin in ujeedada ka dambeysa heshiiska ganacsi inuu hordhac u yahaa gumaysi la damacsan yahay dhulka iyo dadka Soomaaliyeed. Waana sida lagu sameeyo meelo fara badan oo adduunka ka mid ah sida Bariga Dhexe iyo Latin America. Kala qaybintii dhulka Soomaaliyeed gobollada waqooyi ee Soomaaliya waxaa gacanta ku dhigay wadanka Ingiriiska sanadkii 1884 ilaa 1960. Waxaa jiray heshiisyo dhexmaray dowladda Ingiriiska iyo odayaashii dhaqanka ee gobollada waqooyi Soomaaliya. Heshiiskii ugu horeeyay wuxuu dhacay sanadkii 1884 wuxuuna dhigayay in dowladda Ingiriiska ilaalin doonto dhulka Soomaaliya ee gobollada waqooyi. Heshiiskii u dambeeyayna wuxuu dhacay sanadkii 1896 gobolka ay Soomaaliya degtay ee loo yaqaan NFD. Ingiriisku waxay gobolladaasi markiisii ugu horeeyay tageen sanadkii 1891. Wixii xilligaasi ka dambeeyay wuxuu ahaa mustacmar Ingiriisku maamulo ilaa laga soo gaaro sanadkii 1963 markaasoo si olokac looga biiriyay wadanka Kenya. Xeebta Soomaaliya ee loo yaqaano Djibouti waxay noqotay mustacmar Faransiis sanadkii 1859. Sanadkii 1862 waxaa calanka Faransiiska lagu taagay magaalada Djibouti ee wadanka Djibouti. Sanadkii 1881 Faransiisku wuxuu sheegay in Djibouti ay tahay mustacmar Faransiiska. Dhammaan reer Yurubna sidaasay ku warqabaan. Xuduudka u dhexeeya Soomaaliya iyo Djibouti waxaa la sameeyay sanadkii 1882 waxaana sameeyay wadamadii Ingiriiska iyo Faransiiska oo labada dhinac kala gumaysanayay si ayaga laftigooda ay xuduud u yeeshaan. Mustacmaraha Djibouti waagii hore waxaa loo yaqaanay mustacmarada Soomaali Faransa ilaa laga soo gaaro sanadkii 1967 markaas oo gobolladaasi loo bixiyay dhulka Anfarta iyo Ciisaa. Inta aan laga bedelin sanadkii 1977 oo ay Djibouti xornimada ka qaadatay wadanka Faransa. Dhulkana waxaa loo bixiyay Djibouti oo ah magac hadda loo yaqaano Koonfurta Soomaaliya. Waxay ahayd dhul xukuumad Talyaaniga laga soo bilaabo sanadkii 1889 ilaa 1960. Dowladda Talyaaniga waxay heshiis la gashay odayaashii dhaqanka ee Koonfurta Soomaaliya sanadkii 1889. wixii intaasay ka dambeeyay Koonfurta Soomaaliya waxay ahayd mustacmar Talyaani. Intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka gaar ahaan wixii ka dambeeyay sanadkii 1941 dhulka Soomaaliya oo dhan marka laga reebo Djibouti waxaa gacanta ku dhigay wadanka Ingiriiska oo ka saaray meeshii wadanka Talyaani ee joogay Koonfurta Soomaaliya. Laakiin Koonfurta Soomaaliya waxaa dib looga soo celiyay gacanta Talyaaniga Abriil 1950 amarka yimid Qaramada Midoobay oo soo jeediyay in Koonfurta Soomaaliya laga dhigo maxamiyad Talyaaniga muddo 10 sano ah oo ku eg sanadkii 1960. markaasoo qorshuhu ahaa in Soomaaliya xornimada qaadato. Qaybta Soomaali galbeed waxaa qabsaday wadanka Ingiriiska sanadkii 1897. Dowladda Ingiriiska ayaa dhulkaasi ku wareejisay dowladda Itoobiya. Markii hore waxay dowladda Itoobiya qabsatay magaalada Harar sanadkii 1897. kadibna waxaa dhulka Soomaalida ee loo yaqaano Soomaali galbeed lagu wareejiyay si isu xiga sanadihii kale ah 1907, 1948 iyo 1954 iyadoo ugu dambeyntii Itoobiya lagu wareejiyay dhulka hawdka ah. Barnaamijkeena taxanaha baro dalkaada hooyo maanta halkan ayuu noo joogayaa. YouTube-kana subscribe saaro. Haddii Facebook aad nagala socodidna follow dheh. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena. Intaan qaybta kale ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.